wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cali Saciid Reegel ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ka go'aantay horumarinta dhalinyarada isla markaana ay taageerayaan sportiska gobolada iyo degmooyinka waxaana wasiirku ugu baaqay dhalinyarada inay iska ilaaliyaan jaadka tahriibka iyo waxyaabaha kale ee mustaqbalkooda wax u dhimaya annagana waxaan naga go'an inuu dhalinyarada Soomaaliland isbarbar taagno sportiga dhismo dhammaan gobolada iyo degmooyinka xaafadaha hadday tahay caasimada iyo hadday tahay kuwa magaalooyinka dhammaantood sportiga mukanismo dhalinyaraduna way u diyaargaroobaan inay iska daayaan qaadka iyo wahsiga iyo tahriibka iyo mashaakilaadka ay ka mid tahay qabyaalada iyo wixii la mid ah dhinaca kalena agaasimaha dhalinyarada iyo sportiga Maxamed Xuseen Dhabeeye ayaa isna sheegay in uu ku faraxsan yahay tartanka lagu soo gabagabeeyay garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa kaas oo ay ka qayb galeen 12 kooxood waxaana ugu baaqay dhalinyarada inay ka qayb qaataan hirgelinta sportiska agaasimuhu waxa uu sheegay ciyaarahan ugu dambeeyay ee lagu qabtay garoonka Hargeysa Stadium ay qayb ka yihiin barnaamijyada wasaaraddu ay ku dhiirigelinayso dhalinyarada